dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ayaa gaaray heerkii ugu cuslaa. Reer galbeedka ayaana galay aag dagaal xilli Mareykanka ciidamo ku soo daabulayo Yurub. 1700 oo askari oo ka mid ah ciidamada uu Joe Biden amray in la geeyo Poland iyo Romania ayaa laga dejiyay Jarmalka. Arrintan ayaana muujinaysa cabsi dagaal xilli hogaamiyaasha dalalka waaweyn ee Yurub sida hogaamiyaasha Germany iyo Faransiiska ay tagi doonaan Moscow si ay ula hadlaan madaxweyne Vladimir Putin si looga baaqsado dagaal. Ingiriiska ayaa sidoo kale isbahaysi military la sameysay Ukraine iyo Poland oo ka cabsi qaba inay Ruushka u gacan galaan, laakiin isgarabsiintooda military qayb kama aha inay kala qayb galaan dagaal ay la galaan Ruushka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku kalsoon inuu heshiis dhex dhigi karo labada dhinac. Hase ahaatee nuqurka falaqeynteena maanta waxayna durada ku saari doonaa Shiinaha uu ku dhawaaqay inuu garab taagan yahay Ruushka. Haddaba maxay arrintan ka dhigan tahay? Miyaase laga cabsi qabaa in dunida ay galayso dagaalkii qabooba? Ruushka iyo Shiinaha ayaa sameeyay isku soo dhawaanshiyo si cad looga dareemayo, kaas oo ka dhana xiisadda sii xumaanaysa ee ka dhex taagan Moscow iyo reer galbeedka. Waxayna booqashadii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku tagay magaalada Beijing iyo wadahadaladii Jimcihii uu la yeeshay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping sii xoojisay xiriirka labada wadan, sida lagu sheegay hadallada labada hogaamiye iyo warmartiyeed ka soo baxay wadahadalkoodii. Waxaa xusid mudan in kulamada kafoolka ee uu Putin la yeeshay madaxda caalamka ay tahay mid aan caadi ahayn, waayo Putin ayaa inta badan madaxda caalamka kala hadla qadka telefoonka ama muuqaal fiidiyowa. Dhinaca kale, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kulankii uu sida tooska ula yeeshay dhigiisa Ruushka ayaa ah midkii ugu horeeyay ee uu kula kulmo hogaamiye dal kaas oo kafool ah tan iyo markii uu dilaacay cudurka faafa ee coronavirus Janaayo 2020. Khubarada falaqeeya siyaasadda Ruushka ayaa aaminsan in kulankii Jimcihii Xi Jinping iyo sidoo kale Vladimir Putin uu yahay mid qaas ah, isla markaana uu taagan yahay jawaabta ay Moscow iyo Beijing ka bixinayaan siyaasadda sii xumaanaysa ee kala dhaxaysa reer galbeedka. Waxayna arrintan saameyn ku yeelan doontaa siyaasadda dunida. Madaxweyne Putin oo tagay Beijing si uu uga qayb galo xafladda furitaanka ciyaaraha Olimbikada, taas oo reer galbeedka horey u qaadaceen, ayaa wadahadalo la yeeshay dhigiisa Shiinaha, wuxuuna kulankooda ku soo dhammaaday saxiixa bayaan wadajira kaas oo ahaa mid xiisihiisa wata, maadaama uu tilmaamayo in labada dowladood uu xiriirkeeda bilow waayo cusub yahay iyo daahfurka iskaashi istiraatiijiyadeed oo qoto dheer kaas oo u dhexeeya labada wadan. Booqashada Putin ee Shiinaha ayaa ku bilaabatay heshiisyo ballaaran oo ku saabsan sahayda dheeraadka ah ee gaaska dabiiciga, taas oo Ruushka sii doono Shiinaha, waxaana intaa dheer 100 bilyan oo mitir kuyubik oo dheeraad ah misna shidaalka buluuga ah oo loo daabuli doono waddanka Shiinaha, kaas oo la sii marsii doono wadada bariga fog ee Shiinaha. Waxaana shidaalkan nuuciisa buluuga laga qaadi doonaa ceelal shidaal oo ku yaala dhul Mareykanka hore cunaqabateen u saaray. Khubarada Ruushka ayaa waxay muujinayaan sida ay ugu qanacsan yihiin in suuqa Shiinaha uusan kaliya awood u lahayn inuu Ruushka u bedelo suuqa Yurub, balse sidoo kale uu xoreyn doono gacmaha Moscow ee la daalaadhacaya cunaqabateynta reer galbeedka. Qiyaastii isticmaalka gaaska ee Shiinaha ayaa hadda ah 360 bilyan kuyubik mitir sanadkii, laakiin tiradani waa mid sanad walba sii kordhaysa iyadoo oo celceliska koriinka sanadlaha ah uu u dhexeeyo 10% ilaa 14%, taasoo micnaheedu yahay in 5 ilaa 7 sano gudahood mugga shidaalka Shiinaha ee gaaska ah uu labalaami doono, iyadoona sidoo kale la kordhi doono dhuumaha gaaska Soyuz F-4 ee sii mara Mongolia. Sidaas aawadeed, mugga gaaska Ruushka uu geyn doono Shiinaha wuxuu la mid noqon doonaa qiyaasta gaaska Ruushka uu siiyo Yurub iyo sidoo kale waddanka Turkiga. Isbedelada siyaasadeed ayaa ka mid ah waxyaabaha ee heshiiska laga gaaray. Alexander Dashok oo ah cilmi baare dhinaca dhaqaalaha waxa uu sheegay in heshiiskan ay wada gaareen Beijing iyo Moscow uusan kaliya Ruushka u keeni doonin isbedel dhaqaale, balse uu sidoo kale keenayo isbedelo siyaasadeed, maadaama Yurub ay mustaqbalka ku qasbanaan doonto in Shiinaha kula tartanto gaaska Ruushka laga soo saaro. Khabiirkan waxa uu sheegay in dhuxushu ay tahay 60% isticmaalka tamarta Shiinaha, sidaas aawadeed ay si buuxda u bedeli doonto ilaha kale. Shirka u dhexeeya madaxda Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale ka soo horjeeda xiriirka sii xumaanaya ee Moscow iyo Beijing ay la leeyihiin reer galbeedka, taas oo ay sida qabaan khubarada Ruushka sii doonta madaxweynayaasha labada wadan
dhiirigelin dheeraad ah si kor loogu qaado iskaashiga u dhexeeya. inkastoo Ruushku taageersan yahay mowqifka Shiinaha ay ka taagan tahay kiiska Taiwan, sidoo kalena uu taageersan yahay mabda'a ah in Taiwan iyo Shiina ay yihiin hal wadan. haddana iyadoo sidaasi tahay, xukuumadda Beijing dhinaceeda ma aqoonsana dhulka jasiirad u ekaha ee Crimea, taasoo Ruushku ka qabsaday Ukraine inay tahay qayb ka mid ah dhulweynaha waddanka Ruushka. Ka sokow iskaashiga dhaqaale, Beijing iyo Moscow waxay wadaagaan dana iyo qiyam guud, waayo Shiinuhu wuxuu taageersan yahay qadka siyaasadeed ee Ruushka, misna ku wajahan xiisada kala dhexeysa Ukraine iyo ururka waqooyiga Atlantika ee NATO loo soo gaabiyo. intaas waxaa u sii dheer, Shiinaha iyo Ruushka waxyaabaha ay ka sameyn yihiin waxaa ka mid ah in labadooduba ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasadaha reer galbeedka ee iyaga ku wajahan, waxayna rabaan in ay si siman uga qayb qaataan qorshaynta siyaasadda adduunka ee dalalka reer galbeedka isku koobeen. arrintan ayaana keentay in Shiinaha uu Ruushku ka helay saaxiibtinimo iyo iskaashi dhinaca militariga iyo mid siyaasadeedba. xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo sidoo kale reer galbeedka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku shareertay kadib markii Moscow ay 100,000 oo askari dhooftay xadka ay la wadaagto waddanka Ukraine, waxayna Ruushku ka soo horjeedaan in dalka Ukraine oo horey qayb uga ahaa midowgii Soviyeeti haatan lagu biiriyo gaashaanbuurta NATO. dhinaca kale, Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa caawin militari oo isdaba joog ah u fidinaya Ukraine, waxayna halkaa ku sii daabuleen qaar ka mid ah ciidamadooda. sidoo kalena Ukraine ayaa lagu rakibay gantaalada halista badan si ay isaga difaacaan haddii ay la kulmaan weerar ugu yimaada dhinaca Ruushka. haddaba adiga daawada maxay kula tahay iskaashiga dhexmaray labada wadan? miyayse u baac dhigi karaan wadamada reer galbeedka? qaybta hoose fariintaada inagu reeb. mahadsanid.